marka aad aragtid ganacsi waxa kugu soo dhacaya suuq ama dukaan iyo wixii la mid ah laakiin waxa inoo suurta gashay in aan ka qayb galo bandhiga carwaad lagu soo bandhigay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay ku soo bandhigeen gabdhaha ganacsatada yaryar hase yeeshee waxay soo bandhigeen fikrado cajiib ah oo ay ka mid tahay hal abuuro ay ka soo dharaaniriyeen maankooda iyo maskaxdooda kuwaasoo aan loo isticmaalin mishiinno iyo qalab casri doona waxay soo bandhigeen ayaa waxaa ka mid ah saliidda ay dumarka timaha marsadaan oo ay gacmahooda ku sameeyeen iyagoo ka soo dhaliyay miraha geedka ee la yiraahdo joosul hindi ama qumbaha ay Soomaalidu u taqaano iyagoo u adeegsaday looska iyo miro geedka wadankeena ka baxo sidoo kale shaaha heelka lagu darsado iyo waxyaabo kale oo cajiib ah intii aan meesha marayay waxyaabihii indhahaygu ay qabteen waxaa ka mid ah alaabta hidaha iyo dhaqanka loo isticmaalo sida uunsiga iyo waliba xaarbihii badarka lagu sameeyay oo la xartay waana fikrad ku cusub saaxadda ganacsiga ee magaalada Muqdisho sidaas daraadeed gabdhahani waxay la yimaadeen hal abuur haddii uu hirgalo noqon kara mid dad badan baahidooda dabooli kara isla mar ahaantaana samayn kara suuqyo cusub oo soo saarka wadankeena waa YouTube-ka Abina Macalin oo idin leh daawasho wacan